warwaadigan kashkashdayna kelmadaad mar tiraahdo mid dikaabil ahayd kolna aan oranayni ma kaftankii Kalamaan kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix kurodaanan kolkooda hooy kurbadii ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay aga eega managa isku maana maxaad kayga ku diidi dadku waa Kalamaan kulmiyana midaysay horta sheekadan Kalamaana maxaa tiiriya may erti midaysay maahino arreer Kalamaanow deegani warsiin haaye xilibaan dalhaati kormay beeray reer galmudug la'aantiyo alle ka magan yaari shartiyona alle ka magan yaari reer galmudug shaga fayle gobadeen may hati kor dheegi jiray agtii joogsan weyse marbay eeb la kuluntaa laakiin may la kulungnay geeg agtii roog sidu waayta aamoo la kulumaase leeri aya hanti has aruursidiyaha ka aguumi adaada reer galmudug may weeleen kasaasana ashika weeldeen asha oo halaal ee dayib aromada isaaqow waxaan maqli jiray waa shay macaan cuna malayga laakiin maanta waxay joogtaa waa shay macaan cuna ayaxa ay joogtaa aryaadaha waxaan arkaya heer waqooyi dhashiika iyo suu ayax ku ridaaye reer galmudug ma ruugeen cabdullow horaa waxaa loo yiri rooti niman cunidiisa aqoonin oo agtiisa yaala reer Somaliland ayaxi way xabadeeyeen laakiin reer cadaado waa cuneen war hordina mayaw ay hagalanki aamiya dadkan kaagle badan sababtoo eesh ilaahay rahmaan halaal dayib ku weeliyo waana filiga wakiin ku ay taabiyoon ay tiirbeel ma koofadaw waraayahu ilaa wuxuu ahaa barwaaqaan loogeen aryaadaha ayax cunowgis Ugandaan ku ogaaye shimay galmudugna ka bilaabatay arooda aniga war aan idin siiya ayaxa awalaas baxalaal baahay haddii beeraheeni geedii waxba astaafenas dhuqqasii asagan dhuqqasiinayna warnimayo hortaan ugu hore waxaan maqli jiray galmudug waa difaaca Soomaaliya maanta zawaa xaqiiqsadayo ayaxi asbuucaan oo dhan laga cabaadaya ayaga cunay anigu intaas waxaan ku daraahay arrimuhu ayaa maahan ayax taag eelna reeb aha arrimuhu ayaa maahan ayax taag eelna reeb aha yaahu ara abdulow aan helsaas ma iinku ku dheeloy ayax iimaaday aan aha arimaha ayaa maahan ayax iimaaday aan aha maday isaaqow shiribka hanooga dheelin madaxaaga mukhafeene war ma iska dhaadin iyeeyow la arawba amamade aryaada waxaa la yiri ummad yahay dalkiina burburay saad u kala boobtay iyo baraka iyo cayradii geeda kama bayrka basar xumada ka muuqata iga sii baane annagoo busaaraysan oo sidan u bay hoofnay oo buush qaxootiya ajnabi boorash nagu siiyo inaad baaga muddo u nacdaan tabiici beertiina oo naan bislaysan hadii badarna loo keeno waxa hawsha loo baajiyaa sawdad bari ma ankoolo waxa hore loo yiri kale bursariir niman beesa qabin beled hadow joogo kama baahi beele ishow balax ku siiya hankolo anan ma intaas ka darafaday baasuukoodan qaadana bawunka siina beerogi badow ahaay sidee badar ma kala doonta baday isaaqo waxa kale hore loo yiri bogondow bigalkiyaalo haga ki barutiha ashagi hanibu fiyo hakibego ampariane barashoodo been maykasa abdullah ma taqaanidina dhageyso waxa dalka sidii liindhisayday dawladii mariidii dalma dhisaane unugnu daagaayeen waranamaysiin harin lahaayey dalkuun ii dadshay diinteen furgaan duunyada nool dawlii imbahanaaye waldaneeyaw dawlii imbahanaaye madeeyow adiguna heestan kama duqowdid miya kumana daashid miya owganeeyawgeedalimbaaxanaaye yaahu war adiga soo jeceshay oo asaguna u jecel yahay
wareesta ma taqaanina waxay ahayd dal arabaa la jeeya dibadaanka kooya yuruba induula dalma nin dhisaawi dadweyne u dooga dheega wareer galmaanow inuu federaalka fiican yahay sidaan ku garta hangoolkii galmudug ayaa hees bay dhaba qaaday arooda war ma haysiine beledweyne iyo jawhar intii u dhaxaysa waxaa layidhi geelii waa ku baaba'ay cudur aan la aqoonno weligiis la maqlinaa ku dhacaa la yidhi hashana si iskiiga socoto ay dhinac u dhacaysahaa la yidhi xataa waxaa la yidhi tii la biraayo hilibkeeda lama cuni karo hilba baqiilba waa ka daran tahaa la yidhi wargooyow sagaaragaadaan kuu ogeyna geel maxaa kuu geey aryaadhaha waxaa hore loo yidhi owrka heeriya ku gubta geel wuxuu ugu sheekeeya waa yaqaan hadda owrkii geel ka dhammaaday dad siyow ula yaabo waa yaqaanaa war waxaan maqli jiray nin caaqiila oo la yidhaahdo siyaad dhalya dhoobe ayaa wuxuu yidhi hadda ka hor hashamaankayga gadaya ma masaaray laqday marka geelaan xanuunkan hayoo la leeyahay lama yaqaano amausun cabay war dhakhaatiir aragta geela waxay dhaheen xanuunka haya waxaa la yidhaah guux war geela isagaa guuxay siduu guuxu yahay xanuunka aroo geel ma guuxee shib naga dhow waa cabaadaa as yidhaahdaa anigu waxaan la yaabanahay ninkii caraysahay geeliisa guuxaa ka dhammeeyayaa la yidhi asigina kaduudiyaa ku dhacayaa la yidhi iyo gooyooba u ekaaday muga dadkan wax uma dhaqna ee allaha ka kor qaado dhibaatada arooda xisbiyadii madasha qaranka la baxay waraa ka soo baxay waxay dhaheen heshiiskii madaxweynaha nala galay waa uu ka baxay hal qodob oo ka fuliyana ma jirto markii horena raalli kama ahayn waxaan ku heshiinay in la shaaciyo eebbaagoo maalinka ay dhahayeen madaxweynaha waa heshiinay kalamaan uga digta waxay maanta sheegayaan sababtoo ah wadahadal aan hal sawir laga haynin madaxtooyadana hal war owsan ka soo bixin waa u ekeed in lagu inkiri doona xal la sheegaahe warnimaya war ma haysiine jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey shir ay ka qayb galeen aqoon-yahanada geeska afrika oo dhan madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo soo xiray shirkaasna wuxuu yidhi afka soomaaliga wuxuu u baahan yahay siduu ula jaanqaadi lahaa caalamka af cilmiyeed u noqon lahaa af dadka horumariya dadyowga dunidana ku noqdaa mid soo jiita da'yarta qurbaha ku noolna u tusi lahaa inuu yahay qof Soomaali ah wuxuu kaloo u sheegay dadkii shirka ka qayb galay geeska Afrika isbedel inuu ka socdo iskana eegaan faa'iido iyo khasaaro wixii ugu jira warnimayo anigu waxaan aqriyoon aad ula yaabay shirkaas war murtiyeedkii ka soo baxay oo aqoon-yahanadu soo saareen waxaana ka mid ahaa nabadaynta deegaanka iyo la dagaalanka jahliga iyo argagixisada marka taas horaan u ogeyne aqoon-yahanku wax cusub ay soo kordhiyaan ma waayeen war shirka aqoon-yahan ka hadlay wuxuu yidhi dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay bartaan dhaqaalaha iyo dhakhtarnimada cilmiga beeraha wax barta kuma jiraan aryaadaha aqoon-yahan mahan ma joogo horena waxaa loo yidhi irbadka ma ridi karo aqoon yare bulshadana ku eego warnimayo Axmed Waralle maanta ma joogaan ama talaahay waxaa la yidhi heerkii la joogaba adduun waa dhib iyo hawle harbaqoolka habeen dheelmadka iyo hirbahalaynta haloosigii rag hore soo maraa ku hardafaysaaye waa geed hidda ah oo nin waliba jeer harsanayaaye ha ka dudin danaha nolosha waa lagu harraadaaye warwaranle ma matali kartid gobayga inta ku dhig moobilka ka fiiri aryaadaha waranle ha uga finina weligiis goway ma tirinina war Axmed Waralle gabaga rabtaan ka soo xigta laakiin wiilkii yaraa fogaaneega habu isbitaal u qaaday wax ka sheeginina aryaadaha Allah u naxariistay fogaan ee hadda ka hor wuxuu yiri ninkii lama dal yeeshaa mid koor waa dayacayaahe warnimaya war ma haytaana gobolka Gedmayla ka dhawaay gabar madaxweynaha Jubbaland sheegatay war waxa kaloon la yaabay wariyay gada warka ka soo tibinay wuxuu yiri gabadhan waa madaxweynaha Jubbaland oo runa ya Axmed Madoobe godkiisa biyugu soo galeen minay gabar madaxweynaha qoorta loo geliyay Axmed Madoobe hore laba nin qoorta loo geliyay ma gabara hadana loogu daaray ayay gabadhu waa madaxweynaha u dambeeyay Jubbaland uu soo qatamay arada aniga waaba yaabay ma yaaba ilaahay waaye galmudug gabar madaxweyne noqoto hatta ma loo waaye war shalay gabadhu samareer ka hadashay waxay tiri ciyaar hadaan noo maleysaan gabdhaha galmudug waa laba xaniyood oo saas hadii tahay madaxweyne ma noqoto waaba u dhowdahay saas habar cambaroy minaad afar lugood leedahay waaga bari doono yiri warnimaya warmaysiina madaxweyne Trump aqalkii hoose Mareykanka ayaa u codeeyay inay xilka ka qaadaan Trump hadlayna wuxuu yiri waa isqarxin siyaasadeed waxa ay wadaan horta Trump inta uu deynta naga cafihay xaal loo taataabaha ma waalan yihiin
warnimayo wasiirka maaliyadda bayle wuxuu yidhi dayn cafintii way soo dhammaatay maanta kadibna shilin nala ku lahaan maayo sababtaa bangiyada caalamka oo dhan way aqbaleen shuruudihii dayn cafinta warwar ma aysiinin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu ka hadlay shirkii Janaafo qaxootiga lagu hadlay wuxuuna yiri 5 sano soo socod qaxootiga Soomaaliya dib u dejin u sameeynayna yaa ra'iisul wasaaraha hal sanaaba u dhimana 5 sano soo dib u dejin ugu sameeyay ban ku riyooha wariya hal sanana waa u dhimanta 4 sano kalena waa loogu darayaaye soo 5 sano ma sida uu jecel yahay oo ka hadaliyay warnimayo aniga qayre bayle idima sheegine taraama sheekadii kaga haya intuu xilka hayay waxa uu soo dhigay Twitterkiisa 12,000 oo boosti 2,405 kamid ah wuxuu ku weeraray xisbiga dimuqraadiga 5,700 kamid ah wuxuu ku weeraray shakhsiyaad 1,700 kamid ah waxa uu ku buunbuuniyay shirqool la magan yahay Mareykanka 800 kamid ahna isaga isku amaanay ragis faanshawa riis nuugta la yiri taraam xaa ku dhacay war Twitterka madaxweyne farmaajo dadkaas Twitterada tirjaay waxay ka yiraahdeen hal qof buu follower u yahay asna 270,000 oo follower isu leeyahay war waxa ku xaqiiqa waxa qabadka dawladeena in baraha bulshada xoog saartay aryaadaha toddobaadkii la soo dhaafay ergiga qaramada madoobay gobol uusan tagin male mas'uul uusan la kulminna maba jiro doorashadana hal la qabtaa la leeyahay qaar waxay leeyihiin qof iyo cod aan qabahayna qaarna waxay leeyihiin qof iyo cod suuragal ma aha sidii hore hal la yeelo qaarna waxay leeyihiin muddada hal la kororsado muga anigu meel wax u socdaan ma aqaane waxaan dhihi lahay majaabe saameel kaalay umulax leeyihiin majaabe saameel kaalay umulax leeyihiin majaabe saameel kaalay umulax leeyihiin majaabe saameel kaalay umulax leeyihiin